nabadoonka beesha baadacad ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cali Maxamuud Niile oo maanta la caleemo saaray ayaa waxa caleemo saarkiisa ka soo qayb galay salaadiinka kala socotay beelaha Soomaaliyeed wariyahana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya xafladani oo ahayd mid lagu caleemo saarayay nabadoonka beesha baadacad ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cali Maxamuud Niile ayaa maanta waxaa lagu qabtay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana munaasabadani ka qayb galay nabadoonada ka soo kala jeeda beelaha dega gobolka Shabeellaha Hoose iyo marjaraf kala duwan oo munaasabadaasi lagu casuumay qaar ka mid ah nabadoonadii ka qayb galay munaasabadaasi caleemo saarka ayaa waxay ka dhawaajiyeen inay taageersan yihiin nabadoonka isla markaana waxay kula dardaarmeen beesha uu ka soo jeedo nabadoonkaasi in waxyaabaha ay u baahan yihiin uu wax ka qabto waan soo dhaweynayna haddii aan nahay beelaha galadi waana taageersanahay garabtiisuna waan nahay insha Allah idinkana waxaan idinka rajaynaynaa inta dhammaan xafladan kan ka soo qayb gashay waxaan soo dhaweynaynaa waana la shaqayn doonaa dadkiisa iyo diintiisa wax uu taro inta ilaahay oo ku dhaqay gobolka Shabeellaha Hoose sadexna ha noqonin nabadoon ala kul hada madaxa laga dhigay waxa la yiri madaxdii aan noqotay murjiha noqon min hadii lagu geeyay mala dagday aan noqon manfaacadii lagu siiyay murjiha noqon sadexaas la rabaa waa una qaana nin wax qabad fiican leh waay nin orod badan waay nin dheereynay waay haddaad adinka maskaxdiina aad ku keentaan dadka deegaanka aad soo celisaan dhammaan intii ay khudbada soo jeedisay ay ku maxadiyaan anan waa ku maxadiyeen aan leeyahay ka socdo deegaanka Galgaate wakiilna ka ahay waxa diyaar u nahay inaan beeshii baadacad maanta nabadoonka ee duubatay ku faraxsanahay ayisanahay raali ka nahay la shaqeeyayno kan lamaad beeshii baadacad waa dad la yaqaano beeraley ah ganacsato ah xoolo dhaqato ah magac weyn kula jirta faal darteeda warkan uu soo koobayo xafladan sharafta leh oo maanta jimcada ku soo aaday ninka meeshan lagu duubay oo beesha baadacad oo dhastay inaan la shaqeyno diyaar u nahay wakiilka beesha Galgaate waan ku soo dhaweynaa waan la shaqeynaynaa nabadoonku wuxuu rabaa gabuu rabaa in la shaqeeyo la garab qabto waana kaliya xoogaa faataxana loo maro inta tan ku daray walaal nabadoonku waa kaliya faataxana loo maro ilaahay inuu caafimaadiyo xilka loo doortana ilaahay inuu la garab galo walaalkeen oo ay intaas soo doorteen anagana waxaan diyaar u nahay in si dhab ula shaqeyno si wanaagsan ula shaqeyno ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilka loo doortina ilaahay hala garab galo anagana garabkiisa ayaan taaganahay biidhnil kariim waxa la wixii noogu baahdo hada wa billahi tawfiiq wasal waxaan u mahadcelinaynaa beesha baadacad ee walaalaheena maanta guusha noo dhigtay عزومات بحسي سيسر ترى قيمة له وعسب الذكر وأسود وينينا مركوبات مرة بعد ما تتحدث. حلفتنا خروج الفلان وشرفت الفلان ومعاك الفلان وما في صوت ولا صوت مدعية. وما في كسر غير بشيء ده أنا أوصل بعد شيء كسر عديم شيء أو مدعية. نمضون كانوا قصوا بينا نمضون قصوا بينا ومدعية ولا صوت وينه. إلهي وحسب الدين حتى تقول بيني أو خروج القرار هذا هو أنا وحنا هاي بيش الله بس كذا وفي عدا وفي عدا لأن أمثل أراك بيكوز وكميل مثل بشكياني أنتم جيل بمن غوري فان أنتم كلها بمن جيلي فان بيشاب كذي زي بالفضاء ما أنا هراي بان في شكياني أنا بجي سهم كيسي كوي ثمنا سلقلني واي بدين هذا ولا كذا مركب بيش بالا بالجزالين داريش نقلهم لمكم وفيهم بالشقياني محمد علي حتى الصفيلان الشقياني أنا واقف دورني بيش الدبولي هذا نعني وعن كل دورني إناس وقاس صوباريات هاي وقاس إيريس هاي وقاس بعد هوية هاي وقصوا دبينا يا ونكون شقينا يا وهبين يوم معلم وقت كنتبه نوبة هكذا إن ديار كلنا هاي وعن كل هاي تقدر نقول إنه ونمطون لماذا كنا لو إيه كانوا بقرابي وحنا ما لما ما تشجعها
mar lamaad mar afaraad aan u jeedinaa beesha baadacadde ilaahay ninkii ay doorteen oo niile ilaahay maaragtay maxaa la yidhaha garabkiisa ha galo. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beesha baadicadde oo sheegay inay taageersan yihiin nabadoonka islamarkaana gacan ay ku siinayaan wax kasta uu u baahan yahay. horeeye ugaasyada ee ka socda beelaha walaalada nahay ee Soomaaliyeed oo ugu horeeye ugaaskeena beesha baadicadde maanta lagu caleemo saarayo degmada Afgooye Maxamed Cali Maxamuud Niiniile dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin sida aad noogu ajiibteen ee noogu soo dhaweysteen xafladda caleemasaarka nabadoonka beesha baadicadde anigoo ku hadlayo guddoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beesha baadicadde waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furanba kusoo dhawaada. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray nabadoonkii la caleemo saaray Maxamed Cali Maxamuud Niinile waxa uu ka dhawaajiyay in nabadoonnimada aysan ahayn mid sahlan balse uu ka dalbaday nabadoonnadii ka qaybgalay caleemasaarkaasi in garab ay ku siiyaan shaqada adag ee xilligaani hortaala. waxaan malaynayaa wixii la sheegi lahaa horaa loo sheegay hadal badan waxaan kama buuxadna Soomaaliyeed tiraahdaa nabadoon ninka la yidhaahdo dadku waxay leeyihiin waa nin aad u wanaagsan laakiin nabadoon waa dhib badan yahay. waxaan ka codsanaynaa ama ilaahay ka baryaynaa in ilaahay noo fududeeyo xilkan lay magacaabay xilkaas ilaahay ha ila galab gala idinkana soo ajiibitaanka aad soo ajiibteen oo na timaadeen waxaan idin sheegaynaa in diris wanaag iyo walaaltinimo tii awalbana dhexteelay aan idinkula shaqayn doono. Soomaali TV Abdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose.